soo dhawow. dalkan Jarmalka waa dal dimuqraadi ah, waa dal qaatay inuu si xurnimo loogu noolaado, dadka inay siman yihiin, aysan faquuq jirin, laakiin xisbi waxaa jiro loo yaqaano AfD ka shaqeeya inuu dadka kala faquuqo, dadka kala cunsuriyeeyo, Jarmalka iyo qaxootiga kala saaro. shalay toole hay-adda loo yaqaano Bundesamt für Verfassungsschutz waxay soo saartay warbixin ay kaga hadlayso علشان حزبيgan AfD warbixintaas waxay ka koobneed kumbet sida la sheegay. sidoo kale hay'ad waxay ku tilmaantay xisbiga AfD ay hogaamiso Alice Weidel inuu yahay xisbi xag jir ah aan shaki bageli karin oo xisbi banaanka yaal xag jirnimadiisa. sidoo kale hay'ad waxay ku eedeysay xisbiga AfD inuu yahay xisbi nacib dadka qaxootiga, dadka muslimiinta ah, xisbi ka soo horjeedo dimuqraadiyadda iyo xurnimo u noolaanshaha dalkan Jarmalka. hay-adda maysan cadaynin in xisbigan la mamnuucay iyo in kale, laakiin dadka siyaasadda falanqeeya waxay sheegeen in xisbigan mamnuucitaankiisa ay u baahan tahay talaabooyin badan in la qaado, sida in baarlamaanka federaalka iyo midka maamul goboleedyada ay soo saaraan warbixin ama dacwad ay ka dhaleeceynayaan ama ku dacweynayaan xisbiga AfD, kadibna xukuumadda ama wasiirada dalkan ay u codeeyaan, kadibna saas lagu geeyo maxkamadda dastuuriga ah. maxkamadda dastuuriga ayaa xisbiga mamnuuci karta macna. sheekadan waxay imaanaysaa marka afti maalin dhibid la qaaday ayaa waxaa soo baxday in xisbigan AfD uu yahay xisbiga ugu sareeya xisbiyada dalkan Jarmalka. xitaa haddii markaas doorasho la qaban lahaa waxay noqon lahayd in xisbiga AfD uu noqdo xisbiga koowaad ama ugu sareeyo dalkan Jarmalka qaban doonane ra'iisul wasaaraha dalkan. laakiin doodaasi ama aftidaas waxay ahayd afti barooba ah, afti oo doorasho sax maysan ahayn. almuhim xisbiga AfD wuxuu u jiraa in la cuno wax yar. xitaa ma maqli jirtay xisbiga AfD wuxuu aaminsan yahay inay jiraan laba Jarmal, Bio-Deutsch iyo Bas-Deutsch, dad Jarmal oo dhalad ah iyo dad Jarmal la jarmaleeyay inay jiraan oo ayna kala xuquuq yihiin. ma fahanta? marka almuhim warbixintaas cusbaneed xisbiga AfD ni godkiisa biya ugu soo galeen hawada lagu cunaa mar dhow.